badi xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boorama oo maanta shir jaraa'id ku qabtay hotel Sawe magaaladani Boorama ayaa waxay markii ugu horeysay ka hadleen isqabqabsi maalmihii ugu dambeysay u dhaxeeyay xildhibaanada golaha deegaanka oo sababay inay laba u kala jabaan isla markaana xilka laga xayuubiyo maayirka degmada Boorama Maxamed Xuseen Maydhane oo hantidhowrka guud ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku soo eedeeyeen inuu lunsaday hantidii ummadda sidoo kale xildhibaanadu waxay soo bandhigeen waraaq cadaynaysa in xilkii laga qaaday maayirkii degmada Boorama isla markaana ku-xigeenkii degmada Cumar Ilaayo Jimcaale si ku meel gaar loogu sii dhiibay xilkii degmadani Boorama kuteena oo shalay toole hawada loo mariyay kaasoo ahaa waxaan saliir raad toona lahayn waxay ka hadleen waxaan macquul ahayn waxa meesha yaalayna wuxuu ahaa maayarkii hore degmada Boorama Madane Maydhane oo audit-ka qaranku iyo xeer ilaalintu ay ku hayaan lunsi hanti qaran oo $400,000 ah iyo wax ka badan oo mashaariica eedaysanaha iyo eedaysana kale oo xildhibaana oo hantidii qaranka ee degmada lunsaday wax cadna la hayo xil wareejin laga qaadayo xilkii loo sameeyay gudoomiye ku-xigeenkii degmada Boorama intaasoo isa saaran ayay ummadda si kale ugu dhigeen ayr la bedelaa maayir la bedeluu leeyahay maayirro horaa la bedelay kuwa kale la bedelay wax badan ba waxa weeye shalay la bedelay maanta la isaga bedelay oo bedel ku yimiday haddii kii qumbuliyadu ruuridaya la yiraahdo wasiirkii arrimaha gudaha dhaxanta hurday haddana halkan laba maayir maanta ay ka samaysmaan ceeb bay tahay hanti dhowrihii qaranka iyo xukuumaddii iyo barnaamijkii intaa leekaana way fashilmeen baan leeyahay way fashilmayaan haddaan wax laga qaban barina ma soo noqon karaan yacni waxa weeye waxay ku soo noqdaan oy maanta haddana wax kalaan baadhaynaa yidhaahdaan dee dadkuma ka dhagaysan maayaan war waxaan leenahay iyaan la jebinin hay-adaha dalka qaybahooda kala duwan hal la adkeeyo haddii gobolladu waa bayska la dhisi waayo oo baysku dumo madaxtooyaday soo gali waxaan u sheegaynaa dadka degmada Boorama inayna maayirkii hore ee Maxamed Xuseen Maydhane hadhow bay soo ooyi doonaan oo oran doonaan saxiixani baa meesha la ii sameeyay inayna saxiix iskaga geynin inuuna maayir ahayn ninkii iskaga geeyo hadhow kolkaad la timaado adaa ka mas'uula wixii ka qabsada in maayirkii hore ee degmada Maxamed Xuseen Maydhane lagu helay musuqmaasuq iyo hanti lunsi umadeed ma ka difaaci karaa goluhu hanti lunsi lagu helay oo odod iyo xeer ilaalini ay waaran ka soo saareen shacabka reer Boorama oo ardayda iyo cashuuraha bixiya waxaan u sheegaynaa annagu oo lilaahi ah dadkii u dhaartay ah in hantidoodii la cadeeyay aan sheegi jirnay in la musuqmaasuqay ninka ummadda ku oranaya musuqmaasuq ma gelin oo dadkuna leeyahay musuqmaasuq baad gashayna waxaan leeyahay war ummadda ha jahwareerine waqtigu waa iska kooban yahay fadqalala kale waayo golihii uu sheegay been kicin dadweyne uu sameeyay isagoo intaa ka hortagay de musuqmaasuqa lagu heray siduu kaga hortagi lahaa dembigana waxa weeyaan ha isku sii ballaarin baan leeyahay anigu waxa weeyaan dadweynahana mid baan leeyahay war ma jiro cid qolo ku yeerinaysa iyo cid qabyaalad ku yeerinaysa haddaan maanta musuqmaasuqa laynii cadeeyay waa hantidii laynaga soo ururinayay cashuurtii laynaga soo ururinayay baa la luusaday baa layni leeyahay de ninka ku raacayo ee qolanimo aan musuqmaasuq baa dhacay waxaasa la sameeyay waxaasa de xaqii baa noo yimi haddaan nahay golihii deegaanka wixii aanu sheegaynay markhaati yeeshay in badan dadku markay dib u milicsadaan waxa ku jira miidiyaha ee xildhibaanada xataa rag qaarkood shalay garab joogay qaylii 3 sanaba waxaan leeyahay wixii baa markhaati aanu yeelno waxaanu sheegaynay horta rag run sheegay baan noqon markhaati baan yeelay musuqmaasuq waanu sheegaynay waa ka hanti dhowrku helay waxaan leeyahay madaxweynaha iyo dawladnimada foolxumo ku tahay mid dambi galay oo galinkii hore wasaaradii la soo diro leeyahay xilkii ka soo tiri in haddana galinkii dambe la yiraahdo ma ay u kaasho waxba dhiciyay nin kasta oo xunayba de waxba la sameeyay waaba kaartaba taas dawladnimadiina socon mayso dawladda waxaan leeyahay marka dawladnimada dadka ay dan u tahay
dalkay dan u tahay ummadday dan u tahay war dowladnimada ayaan la jilcinine dadweynaha reer Boorama waxaan leeyahay war waxaas waxba kama jiraane dee waxaan laga qaaday waa wixiinii weeyaane annagana meelahaasaan naga weydiisin oo tiraadin waa maxay waxaana lagu kordhiyay cashuurtii waxaana jirtay annaga waxbaana weydiinine wixii maanta waa lagu hele dee shacabka waxaan leeyahay dee kaalayo caddeeya dee oo waxaad tiraadeen annaga wixii naga qaaday halkee la mariyey waxaasoo lacaga waa wixii naga naga qaaday annagu waxaanu u dhaaranay waa dalkii degmadan anagu dhaaranay inagana soo doortay inagana anagu rabnaa inaan wixiina qanuuyi hagaajin maanta way dhaaftay hawl baan shalay isku ogeen hawshiina dad baa ka shaqeeyay arrimo kale badmadow shalay ka soo baxay saxaafadda oo dadka fariiq qaldan la gaarsiiyey iyo madaxda qaranka waxa weeye waxaan halkan dadka uga cadaynaynaa maayar iyo ku-xigeenis haystay may jirin golo deegaano is haystayna may jirin waxa weeyaan waddanku institution buu leeyahay ama shuruuc buu leeyahay eed baa ku timiday gudoomiyihii hore golaha deegaanka mudane maxamed xuseen meydhane iyo qaar ka mid ah xildhibaanada oo lunsi hantiyada hay-adaha sharciguna dee way madax banaayiin authority baa loo siiyey inay shaqadooda qabsadaan marka waxa weeye sharcigu hadduu shaqayn waayna sharci darrada shaqayn wax is haysta iyo golo islaynaya iyo dad islaynayaana ma jiraan meesha tan waxa la isku qabtay waa sharcigaas un baana la fulinaya xukuumaddaadana fulinteedu u taallaa marka waxa weeyaan sharcigu ha shaqeeya baan leenahay xukuumadda annaguna waxa weeyaan waxaan taageersanahay waa sharciga weeyaan cid is haysata iyo campaign meesha lagu jirayna ma jirin waxa laga dhigay in cid kursi laga qaadanaya meesha mu oolin sharcigaas un baa la fulinayay tixraac bayna warqadan kaga soo baxday xafiiska barasaabka isagoo tixraaciyada wasaaradda ka soo baxday